waxaana ku eedaysan oo falka meeshaa ka dhacay mas-uuliyaddeed dusha ay ka saaran tahay labada taliya qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta booliiska geedkaa ragaga waxaa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ay ahayd waxaa dagaal ka dhacay meesha la yidhahdo cali shiino oo degmada matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxaa ka dhacay dagaal waxaa la jabshay ciidankii soomaalida laglajanse ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay 5 sarkaalaha maxkamad lagu saaray meeshaa waana la toogtay haddii ciidanku laglajanse taliyaha ka timid uu jab ku gaaro koodisha binaale xeerka cinqaabta ama buugga ciidamada markii la yidhahdo dil toogashaa waay ciidan baa halkaa ku dhintay wasiiraa ku dhintay madax kaloo maamulka gobolkaa ku dhimatay dad shacabaha ku baaba'ay saraakiil ciidan baa ku dhimatay mas-uuliyadda dadka ciddii iska leh in guddi baaritaan la soo diro xeer ilaalinta qaranka in la soo diro ayaan dawladda soomaaliya ka codsanaya xeer ilaalinta qaranka in la soo diro oo dembiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameerku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro waxaan codsanayaa oon carabka ku adkaynayaa falkii meeshaan ka dhacay cid baarta aniga ka mas-uuliyad ahaan ka gobol ahaan waxaan caddaynayaa in ay leeyihiin laglajansada dhacday labadaas sarkaalna carabkaa ku dhuftay waa qaybta booliiska iyo qaybta nabad sugidda waxaanan dawladda ka codsanayaa hay-adaha ku shaqa leh xeer ilaalinta qaranka CID cid kiiska meeshaan ka dhacay baarta in la soo diro